talaaladii marka Mareykanka la keenayo cirbada badan lagu soo dhufto waxay ahaayeen iyo wixii oo ku jira ma ogeyn waa noolnaa oo ku socnaa kana waa qaadinina haduu Ilaahay yiraahdo ay dadka Soomaalida oo dhahayaan ma qaadaneen waxa kula talin adi qaadasho nin ka rabo mala shaqada aadis diyaaradda araacis meel badan lagu gaada nin qaado ku dhahay ma laha nin ku qasbay mal already waa lagu soo hora lagu soo cun cirbada badan lagu soo dir marka lagu keenay tan wax ma ka dhibis xisaabta ku buuxinay talaalka waxaan ka aaminsanahay sida anigu gabigaygaba waxaan ka aaminsanahay waxaan jirin inuu yahay coronavirus la sheegayo dhanna wax jiraba uma qabo dawadaas anigu waxaan ku talnaa qof Soomaali inuu saqaadan sababtu waxa weeye dhasha awlaad xaqeeda side effect bay leedahay waxba u gaarsiinaysaa horta aanu ma qaateen sababtaana u qaateen baa waxay tahay niyo baasha afqalooc baa laga qaadayaa halkan aad naga daawanaysaa waa Shawaan Media maanta waxaan isku daynay inaan dadka mikrofoonka la dhex qaadno oo aan kul weydiino waxay ka qabaan talaalka bal nala daawada soo sheegay weena sama faraan dadka Soomaaliyeed oo idin saafaya talal cusub صح haddu waa talal cusub taqanayo sheegay inuu bilaan soo baxayo ra'yigaaga shakhsiyan haddii dawadana maanta dabkay saaranto lagu yiraahdo way soo baxday aduu ma qaadan lahayd mise ma qaadateen miyahu aniga ma qaateen dawadaas waa dawo cusub welina lama tijaabin marka waa wax aan u arko inaan lagu degdegin haddii lagu dhaho toddobaadkan dawladda waxay bilaabaysaa in dadka lagu diro oo dadka ugu horeeyay iyo waxay u tahay available haddii lagu dhaho berita available ba ku tahay ma qaadan lahayd ma qaateen waayo ma qaateen ma huwa waxay tahay wax effective wax aniga ugu sameyn karto wax kasta waxa loo baahan yahay in la ogaado waxa uu faa'iido leeyahay wuxuu khasaare dhibaato keeni karo marka I don't know waxa aniga jirkeyga iyo caafimaadkayga u keeni karto dhibaato marka ma yeeli karo dawada talaalka horta waa wax loo baahan yahay haddii ay dawo yani maaragtay tayala tahay soo adigu shakhsiyan hadda maanta haday dawadu soo baxdo lagu yiraahdo adiga adeer ahaan lagu yiraahdo ma qaadan lahayd mise waa diidi lahayd waxa dadka waaweyn ee dawada u baahan baan ahay laakiin hadda dawada waqtigan xaadirka diyaar u yihiin inaan qaato hadii la weydiina ilaan iskoobsa inaan qaato diyaar u yihiin maxaad ku sababeyn lahayd inaad diidid oo aadan qaadan maadaama COVID-19 kana adduunka sanad fariisiyay dawadiina hadda soo baxday dadkiina u baahan yihiin marka maxaad adigu is leedahay waad halkaa waad uga shakisan tahay miyay xun tahay ma side effect bay leedahay يعني واحد ولي الخبصنين يا سيد في الاستيراد هاي سيادتك إن الخبصة أي ما أعرف ليش وجود. صوّح شيء هي وين السماء فران ضدك Soomaaliyeed ودين صافيا. وروحوا بشيء بجالات هاي مرت ما تواقف قبلني سؤال يرو سيمبل في ديننا COVID-19 كدوديسي ضبكي سارنتها وسو سocdaa. marka hadii lagu yiraahdo maanta waa diyaar adigu ma is qaadan lahayd dawada mise ma qaadan lahayd اليوم ورت هوري دawada ma aragtay dawada waa cabsi sidoo kalena waxa la sheegay faa'iidooyin badan oo leedahay khasaaraheedu waa badan yahay marka waxa la yiri so far horta salaanta ugu horeysay Yurubta Ingiriiska lagu diray ilaa hadda xaaladda meel ku sugan tahay lama oga sidoo kale niyo horta aanu ma qaateen sababtaana u qaateen baa waxay tahay niyo baasha afqalooc baa laga qaadayaa qofka bini'aadamka xali afkiisa saana maxaad aadiyay af dawada waxa waxa laga sameeyay balaa laga sameeyay dhaqaatiirtu waxay dhaheen 96% effective way balkawr arinta niyo anu maalinta dawadan qaadanay ma taqaanaa maalinta la yiraahdo dhaqaatiirta laftigooda waa lagu diray oo qaatay maalintaas qaadanaa dawadii baa dabka soo saaran COVID-19 marka adigu dadku waxaan weydiinaynaa haday imaado ma qaadanaysaa daawada mise ma qaadanaysaa daawadaas ma qaadanayo ma jecel inaan qaato maxaad ku sababeyn lahayd marka inay daawo tahay ma hubo assalaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatu dawadaas anu waxaan ku talnaa qof Soomaali inuu saqaadan sababtu waxa weeye dhasha awlaad xaqeeda side effect bay leedahay waxba u gaarsiinaysaa dadka Soomaalida waxa weeye sidii shimbirta ayaa wax walba saas gudaha ugu dhaca you have to inaad marka waxa weeye aad iska jeegaraysid waxa yihiin aad controlshid oo dhaqaatiirtaada aad la tashatid anigu marka raay ahaan waxaan leeyahay dawadaas wixii Soomaali ah oo aqli Ilaahay kaashada Ilaahay baa anagana daweeyo kalaamullah isku akhriya
iska dhaafa side effect way leedahay awlaadda xaggeeda ayaa la in kala dagaalamaya ana runta ku sheegaya saasaan leeyahay salaamu calaykum marka dhaqaatiir sheegtay miyaa jirto oo dhaqaatiir badan baa sheegtay yani dad badan baa u tagay dhaqaatiirtoodii oo dawada side effect bay leedahay afqalooc baa jira leeyahay dhasha awlaadda xaggeeda organada waxbay u dhintaa marka dhibaatooyin badan bay leedahay ilaahay hala kaashado ilaahay baa naga nagu filan asagaana na daweeyo dawana ma aanu qaadantay aniga kula hadlay weligay allah inta ifka saarna talaal weligay allah ma qaadan dawadan hargabka loo qaato waan diiday dhakhtarka markii la jeeg gareeyna 3 months baan tagaa alxamdulillah horta maxaad cuntaa biyan ilaahay kalaankiisa isku daweeyo baan ku irbeen ma sheegay marka daad way Soomaalida haddaan nahay waa ina be careful samaysaa I don't think we should take that thing because I don't know if it's scientifically proven and unless it's proven we can't take it. Okay, the doctor said it's 95% effective. I think I'll just keep my mask on You keep and your just try to be safe. Other than that, I won't take it. You won't take the risk. No. halkan aan naga daawanayso waa Shawaal Media xog ururin waxaan ku shaqeynaa dadka weydiino bal siday u arkaan talaalka marka adigu shakhsiyan sidaba talaalka u aragtaa haddii yiraahdo berri talaalkiga imaado waa la qaadanaya adigu ma qaadan lahayd mise waa diidi lahayd oo qaadan lahaa cause wax la soo testgareeyay oo waad ku kalsoon tahay inaad qaadato yeah because a lot of people want to testgareeyay and looks like it works talaalka haddii berri imaado ma qaadan lahayd adigu shakhsiyan mise waa diidi lahayd haddii ay shakhsiyan tahay waa la diidaya laakiin hadday shaqadaada kugu qasbayso ama dawladda kugu qasbayso waa in la qaata in la diida maaha ma qaadan lahayd sabab sababta tijaabo ku jirta talaalka waxaan ka aaminsanahay sida anigu gabigaygaba waxaan ka aaminsanahay waxaan jirin inuu yahay coronavirus-ka la sheegayo dhanna wax jiraba uma qabo sababtu maxay tahay hargab waa jiray hargabkii jiray buuna la mid yahay aniga hadda xanuunka coroonuhu waa igu dhaca hadduu igu dhacana wuxuu igu dhaca keymtu hargab wax ka weyn oo hadda aan irbado ku qaatana maba aragbo wax iga daaweeyay oo injection iyo daawo midna iga siiyeyna ma jiraan taasuna waxay la mid tahay hargabka dadka soo mara marka maba aaminsaniba anigu marka hadda daawada ma qaadan lahayd mise ma qaadan lahayd run ahaantii aniga kolleyba hadday igu soo aado ma qaadanayo mana qaadan doono insha Allah waxaan ku sababayn lahaa waxyaa xanuun uu yimaadaa laakiin xanuunku waa inuu yahay wax la yaqaan oo magac leh ama daawo leh marka wax la yiri daawaba marka hore ma lahan daawada hadda la keenay xagee bay ka timi maxay sabta talaaladii marka Mareykanka la keenay cirbado badan oo lagu soo dhuftay waxay ahaayeen wixii oo ku jira ma ogeyn waa noolna oo ku socnaa kana waa qaadinina haduu Ilaahay yiraahdo ay dadka Soomaalida oo dhahayaan ma qaadaneen waxa kula talinay adi qaadasho nin ka rabo mala shaqada aadis diyaaradda araacis meel badan lagu gaada nin qaado ku dhahay ma laha nin ku qasbay mal already waa lagu soo hora lagu soo cun cirbada badan lagu soo dir marka lagu keenay tan wax ma ka dhibis xisaabta ku buuxinay ana ma yahay cirbadii lagu soo dir marka la keenay side effect wada ana ma ogaa حق إله كشعنا وأنا ودي ديل مركز أنا تيجي لما يصير كلها مركز والحين إلهي كانوا الحمد لله أنية وبيني كي وأركز والحين وعصبته وأميسنته معناه تلالك ذكر لن أخذنا هذو كمبرسر نفوا ولا شو خصبه وأخذنا لكن هذو خصم هاي هذو خصم هذو خصم بين مخادنا إلى إيش كذا اعتماد وابدو الجميع ده وحال له أفكار قلوعدي وحاس كور محس والله أصلا عبد جريم بدك أفكار خلوه عنه قف وح أمر الله السعود صوح شيء هي وين السماء فلان ضدك صومالية ذوذين صافيا وسلسلة وريك السياسة ضوي وانا صوبة بعين من سلقة نينيني سلسلة وريك السياسة ضوي وانا صوبة بعين من سلقة نينيني صاحبيو كرسيga marka lagu sardaami saaska nabadaya yaani saameyn bulshada kursiga marka lagu
سردامي ساسك النبض ضيق يعني سامي برشادة